ayaa sheegay in isagoo ka soo kicitimay dalka Jabuuti una socda howlo shaqo taliyaha booliska Somaliland amar uu bixiyay lagaga celiyay xadka loo yacdo inkasta oo dalka uu ku galayay safar sharci ah isla markaana uu haysto ruqsad ay bixisay wasaaradda warfaafinta Somaliland oo uu dalka kaga shaqeeyo hase yeeshee waxa uu saxafigaas oo la yiraahdo Cali Axmed Raabi Cali Seenyo sheegay in taliyaha boolisku xaqiisii muwaadinimo ku gafay isla markaana uu shaqo ruqsad rasmi ah oo haysto uu ka hor joogsaday haddaba Cali Seenyo ayaan khadka telefoonka ee magaalada Jabuuti ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti kula xidhiidhay waxaan ugu horreyn weydiiyey bal hadda mar labaad inuu sheego sababta looga celiyay dalka sababtaasi Axmed Nagaasho waxaan umaleynaya walaalada ku fiicanayd generaalada waayo waxaan anigu sheegi karaa inaanay wax dembi lahayn haddaan wax dembi lahaa hadda markaan galay baa la xidhi lahaa qudhaadu sida aad uga falcelisay markii lagaa soo celiyey halkii aad u socotay lagaa hor joogsaday waxay ahayd si cadho leh baa telefishinka hadallo aad qof ku duraysa oo taliyaha booliska ee Somaliland u tidhi falcelin saxana ma u muuqdaa waxa aad ku dhaqaaqday inaan caraysnaa layskuma hayo 8 subaxnimo meel fadhiistay shantii iyo barkii galabnimo ahayd markaan barnaamijkan duubayey laakiin anigu marka dhinaca saxaafadda laga hadlo shaksi kamaan hadlayna waxaan ka hadlayay xilka qofka bini'aadanka ahi loo dhiibayo ma u qalmaa mise uma qalmo marka haddii aan doonayo inaan markaa disbruuf gareeyo qofkaasi inaanu jagadaa ku wacnayn waa inaan markaa dee aqoonta uu u leeyahay arrintan ka hadla warbixintaada waan dhegaystay toos baad u durtay taliyaha booliska si shakhsiyaad u durtay miyaanay ka habboonayn inaad si madaniya dacwaddaada u gudbisato oo aad maxkamad tagto intii aad warbixin ku soo bandhigi lahayd waxaan u arkayey waa sax sidaad u degtay Axmed laakiin waxaan u arkay in jananku isaga laftiisu ignoor gareeyey hay-ado iyo institutionskii dowladdu waraaqihii ay bixiyeen sidaa darteed dacwada aan u qoraa isagii iyo cid kaloo lamida inaanay macno badan samaynayn dee markaa maxaad ku kala duwan tihiin isagii aad ku eedaynayso inuu hay-adihii waraaqihii sharciga ahaa ee ka soo baxay aanu tixgelintooda siinayn haddii aad adiguna durbabiiba rumaysan tahay inaanay dacwaddaadaasi meel gaadhayn oo aan sharciga la tixgelinayn sow isku aragti ma tihidin adig iyo qofka aad dhaliilaysaa calow maxaad ku kala duwan tihiin markaa isku aragti ma nihida waxaanaan isku aragti u ahayn anigu waxaan gudbinayey oo aan dadweynaha iyo cid kasta u sheegayey xuquuqdii muwaadinnimo ee aan lahaa oo layga qaado waxaan sheegayey hay-adihii dawliga ahaayoo immigrationku ka mid yahay ninka intaaba ishortaagay inaanu dacwad dambe wax ku qaadayn dacwad loola oonsanayn waxay ahayd in marka la ogaado lagu caddeeyo inuu jeliyey constitution adigu sidaad u dhigtay warbixintaada telefishinka ka sii daysay iyo haatan doodaadu siday tahay waa dhinac keliya marka sharciga la eegayana adigoo ay qudhaada caddayntaadii haysta waa in haddana maxkamadi caddaysaa oo si gara loo buuxiya haddii wixii aad dhaliilaysay telefishinkii aad ka shaqaynaysay aad warbixintii ku sheegtay isla markiina aad tidhaahdo qofkaasi wuu khaldan yaho sharcigii buu burburinayaa oo aad doonayso uun inay bulshadu aragtidaada iyo dhinacaad adigu wax ka eegayso keliya ku qancaan miyaanad qaldanayn qudhaadu anigu waxa aan u gudbinayaan bulshada u doonaya inay dhegaysato in sharcigaygii iyo xuquuqdaydii waxaa laga yaabaa qofka kale waxaanu ku kala duwanaynoo quraas anigu waxaan lahaa meelaan codka laakiin qof bini aadana oo janankii boliiska isagu ka baryaya aan leeyahay war sharciga imariyo waxaan sharci leeyahay isii intaa inaan bulshada u gudbiyaa unbay ujeedadaydu ahayd aniga calow xirfad ahaan shaqadaadii iyo warbixintii aad bartaa lowlyacaddo ka dirtay adiga iyo damiirkaaga iyo xirfadaada suxufinimo miyay kula saxnayd inaad sidaa u tabisaa way ila saxnayd waayo waxay igula saxnayd waxaa jira intaasoo badan oo voiceless ah oo dhibaatooyin noocaasi ay ku dhacaan oo jeclaa markaa inay gaadho dadka dhexdiisa si loo ogaado markaa problemku inaanu aniga ahayn ee uu problemku yahay isaga Cali Axmed Raabi Cali Seenyo ayuu kaasi ahaa oo khadka magaalada Jabuuti ee Jamhuuriyadda